madaxweynaha dowladda Puntland ayaa maanta safar dhulka ku soo gaaray magaalada Qardho waxaana magaalada ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Kandegmada iyo laamaha ammaanka. Madaxweynaha ayaa soo dhaweyn kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada halkaas oo ugu horeyn xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo ka socday magaalada. Intaasi kadib waxaa madaxweynuhu kormeer indha-indhayna ku soo maray cisbitaalka guud oo ka socotay dhisme lagu horumarinayo cisbitaalka. Ugu dambeyntii waxaa madaxweynaha iyo wafdigiisa loo soo gudbiyay hoyga madaxtooyada halkaas oo ugu horeyn saxaafadda kula hadlay gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha magaalada ugana warbixiyay xaaladda gobolka iyo mashaariicaha ka socda. aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweyne kaaga mahad celinaynaa. gobolku boqolkiiba boqol waa nabdoon yahay, wax dhibaato ah hadda oo ka jira ma jiraan. roobku waa googoos oo meelo badan baan roob qaban, laakiin xooluhu meel abaar ah iyo xoolo abaar fadhiya ma jiraan maanta. wax ilaahay looga xamdi noqo. baraagaha qaarkood waa biyeysan yihiin, dhulkuna waa soo baxay oo hadda geeday leeyihiin. inta kalena ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu inoo buuxiyo. madaxweyne ku soo dhawo magaalada Qardho. runtii magaalada Qardho xilli jilaal la soo maray hadeerna xoogaa roobaa ka day, laakiin roobku wali sidii loogu talagalay ma aha. waxaa la soo karaa boqolkiiba 30 ayaa magaalada Qardho nawaaxigeeda roob ka heshay. intii kale waa abaar, baraago badan baa wali aan biyo gelin. insha Allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay inoo soo ilaahay madar khayr qaba inoo keeno. insha Allah iyaguna waa inoo buuxsamin doonaan. xagga amniga waa fiican alxamdulillah. Qardho waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga fiican ee wadanka. ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Cali Gaas ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntan ay u sameeyeen maamulka isagoona ka warbixiyay safarkiisa uu maanta ku soo gaaray magaalada Qardho. waan ku faraxsanahay magaalada runtii. markasta imaadana waxa ii muuqda tallaabo horumar loo sii qaaday. ama jidad ha noqoto ama leerar ha noqoto ama horumarinta yani ka socoto oo dhanka arrimaha bulshada. hadda isbitaalka aan soo marno shaqada fiican ka socoto. dabcan dadaal gobolku muujiyay iyo dowladuba iyo shacabka reer Qardhood iyo reer Karkaar ayay horumarkaas ku yimid. waxaan rajaynayaa in hore loo sii ambaqaado, hore loo sii wado. magaaladani waa magaalo muhiim ah, xarunta dhaqanka Puntland weeye. waxaan rabnaa in ay horumarto, dhaqaalaheedu u kobco, kaabayaasha dhaqaalaha horumaraan. waxaan rabaa magaalada hadda sidii hore loo degay si ka duwan in loo dego oo magaalada wixii ka baxsan banaanadeeda in hadda town plan fiican loo sameeyo. wuu ii sheegay Aadan Cabdullaahi Dagaarshe, Somali News TV, magaalada Qardho.